sida ogtihiin dawladdu waa saddex qaybood waa sharciga waa fulinta waa maxkamadaha ama cadaaladda kan aasaaska u ah oo labada kale ay soo hoos imaanayaan waa baarlamaanka haddii meeshaas baarlamaan dad aqoon u leh karti u leh dadnimo u leh integrity u leh oo aan dan shakhsiyadeed meesha u joogin danta dalka iyo dadka u jooga ay meesha imaan waxa dhacaya waxa hadda Soomaalida haysta ayaa dhacaya oo ah baarlamaan u shaqeeya hadba ninkii dalka madaxweyne ka noqda بمعنى الكلمة مديدون أباديه كران مديدين أما الدولة قبلها هاتو أما الدولة الدحية الفدرال كهاتو وحيالها هو وين دولة لماذا الصومالية لك علاقة هاي وحويه إلا يوحنا ليه كحرني مدي إلا دولة دي محمد سياد بره إلا يصدق كي سنة هبدا بالصومالية يكون جرتي ولا هوجا سببته أقويني واحد تهيبه دورشوين كدعية ayay salka ku haysaa horta xildhibaanka la qulanayo waxay salka ku haysaa in dalka ay ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo qofka muwaadinka ahi uu wax doorto ayaa horta aasaas inay ka dhacdo taasna 10 sano ugu horeeyay oo dawladii rayidka loo baxshay ayaa doorasho ka dhacday waana ognahay sababaha ugu waaweyn ee dawladii militarigu ee Maxamed Siyaad Barre uu hormuudka ka ah dalka ula wareegtay inay tahay doorashooyinkii halka ka dhacay oo musuqmaasuq iyo ma garanaysaa in lagu xadgudbo sharciga doorashada iyo in dad gaar ah ay ku shubtaan iyo in axsaab badan oo tirada ka batay meesha soo galaan axsaabtii qabaa'il isu bedesho markii dambe ay sababtay inay militariga dalka la wareegaan kadib markii dawladda Maxamed Siyaad Barre dhacdayna muddo dheer ayaa lagu jiray wada hadal iyo dagaal ahli ay waxa dawladdii marka laga bilaabo imbagaati lagu soo dhisay ayay bilaabatay in la xulo xildhibaanada nasiib darro waxa la keenay barnaamij ah 4.5 ama 4.5 qofba soo yaqaan arintaas oo keentay xoojisay barnaamijkii uu ku burburay Soomaalidu ku burburtay ee kacaanku ku dhashay ee Maxamed Siyaad Barre ku qabsaday ee ahayd musuqmaasuqii iyo eexdii iyo qabiilaysigii iyo qaraabakiilkii ay ku burburtay dawladii rayidka hay'adda Soomaaliya 4.5 inuu dib u soo cusboonaysiiyay baan anigu qabaa waxaana hadda muuqata waxa dhalatay ilaa iyo dawladii Cabdullaahi Yuusuf dawladii Xasan Sheekh oo la yiri waa joogto iyo dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo iyaduna hadda 8 sano ah iyagoo la yiri waa joogto ilaa ay hadda waxa moodaa 4.5 inuu sii xoogeysanayo wixii hadii qabaa'il laga dhigana ma soo baxayo xildhibaan wanaagsan ee u qalma shaqadaas ee dadka u gudbin kara godka dheer ee Soomaalidu ku jirto ka soo saari kara waxaana looga bixi karaa anigu saan qabo inay dadku doortaan dadka u noqonaya xildhibaanada u noqonaya shacbiga Soomaalidu waxaan qabaa dad wanaagsan inay yihiin dad qiimeyn kara qofka isa soo sharxa ee xildhibaanada isa soo sharxa inay yihiin dad qiimeyn kara haday degmo tahay haday qabiil tahay oo soo dooran kara dad wanaagsan laakiin hadeer waxa dhacay oo culture noqday in xildhibaanada ay soo xulaan qabiilka iyo niman la dhaho ismo iyo nabadoono iyo la dhaho arintaas waxay keenaysaa marka ninka nabadoonka iyo ninka nisinka ninku isleeyahay berito naas buu ku noqonayaa amaashid ayuu soo xulaya oo meesha keenaya ee uma keenayo waa wax la og yahay weeye Soomaalidu wax waadixa oo cad oo sida qorraxdaas oo kale u cad oo sida dayaxaas oo kale u cad bay 24 saac been ka sheegayaan waxa la rabaa qofka afkiisa iyo gacantiisa inay iswaafaqaan baa la rabaa qof muslim weey 5 salaadood buu maalin walba Ilaahay hor istaagaa waxa aniga ii muuqata dadka Soomaalida inay isaga qasantay islaamnimadoodii diintoodii sharaftoodii aakhiradoodii iyo waxa adduunku u yahay oo ah dan shakhsiyadeed meesha waxa laga hadlayaa danta ummadda hadda ninka isinka ah ama nabadoonka ah ama wasiirka ama madaxweynaha markuu diyaariyo oo keeno dad laaluus lagu keenay hadda waxa weey haduu isagu noolaado aabi adeerkiis ka waran iyo ciyaalkiisa habaryartiisa iyo ciyaalkeedii ka waran abtigiisa iyo ciyaalkiisa ka waran walaalkiisa iyo ciyaalkiisa ka waran ina adeerkiisa iyo ciyaalkiisa ka waran kuwa qaraabada la ahaa oo soke iyo dadkoodii ka waran waa baabaasiin caafimaad ma haystaan biyo nadiif ma haystaan koronto raqiis ma haystaan waxbarasho ma haystaan dadkii waa dhibaataysan yihiin
marka waxaa la rabaa inaad fikirtid oo u fikirtid inaad noqotid qof statesman ah oo ummadda iyo dadkan iyo dalkan adduunkana hal ogaada qofka bani aadanka ahi waqtigiisu waa yar yahay qofka cimriya 100 sano ninka gaara waa cimriye baa la dhahaa waa tegaysaa adduunyada waxa lagu dadaalaa waari maysida warakaaro anigu intaasaan dhihi lahaa arrinta tani waa arrin salka ku haysa in laga baxo 4.5 oo loo gudbo dadku in ay doortaan dadka xukumaya baarlamaan wanaagsan baa soo baxay sida hadda ku socoto oo hadda dib loogu soo celiyay tan federaalka oo hadda tan goboleedyada ku socota ah waa ku sii baaba'ayna waa ku sii tirtirbayna afarta qof oo xildhibaanada ah iyo nimanka madaxweynayaasha hadda iyaga kaliya Soomaaliya ka haran baan dhihi karaa ummadda kale ha baaba'an wassalaamu calaykum